walaalayaal xaasidnimadu waxa weeyaan adiga oo timniya oo doona nicmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof uu siiyay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka uu ka qaado waxa jiro dadka qaar cudur noocaas oo kale ku ibtilaysan haday arkaan qof wax haysta oo wanaag ah ama waxa siman ha ahaado ama aqoon ha ahaado ama aqal ha ahaado oo doonaya oo timninaya inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka uu ka qaado walaalayaal cudurkaas waa cudur aad u halis ah weeyaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله ولا ليال أنس بن مالك رضي الله عنه وحوليه رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري لا تباغضوا هاسكو عرونينا ضدك مسلمين تهو وقلبينا اسكو فيه وهذا يوليه رسولك صلى الله عليه وسلم وحوليه ولا تحاسدوا هنايس حاسدنا وقف مسلمة قفك المسلم كوسن حاسدين ولا ليال حاسدنimadu waxa weeyaan adiga oo timniya oo doona nicmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof uu siiyay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka uu ka qaado waxa jiro dadka qaar cudur noocaas oo kale ku ibtilaysan haday arkaan qof wax haysta oo wanaag ah ama waxa siman ha ahaado ama aqoon ha ahaado ama aqal ha ahaado oo doonaya oo timninaya inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka uu ka qaado walaalayaal cudurkaas waa cudur aad u halis ah weeyaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay wala tadabaru wala taqadu hana isku dawjeedinina yani ha kala tagina oo kala go'in weeyaan wa kunu ibadallahi ikhwanan rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ahada adoomada ilaahayo dad yani walaalo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qof muslim ah xalaal uma aha oo uma banaana qofka kale walaalkii inuu ka hijroodo saddex maalmood wax ka sareeya hadii qof muslim oo walaalka ah aad ka amsanaato saddex maalmood wax ka sareeya waxa weeyaan waxaad ku dhacday dimi dunuudka waaweyn ee kamid ah weeyaan hadii laakiin qofka kale aad yani asbaab kale aad uga hajirto yani sabab ama sharci aad uga hajirto yani waa faasiq weeyaan khayrkii baa u sheegtay wuu ka diiday taas yani waxa weeyaan waa sabab yani diin ah oo sharci ku taagan laakiin hijroowid yani diidayan waxay tahay يعني مد أنا صواب لهين يعني أنا شرع كتاجنين السلام عليكم.